I'm shocked. Assalamu alaikum. I am so shocked. I'm shocked. I don't know. At High Point Farm or your preferred venue in the DC area. HighPointCatering.com. Geico, celebrating more than 75 years of providing auto insurance for drivers across America. More information about auto insurance is available at Geico.com or 1-800-947-AUTO. waxbaan ku qorayaa meesha wareedhaha waxaan caadiyaa inaa la ii sheegay aniga dhan am shaking waxaan rabaa inaan idiin sheego war wixii soo geli karaa soo galaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintan xaqa iga hadalsiinayay waxaan aaminsanahay xaq inuu iga hadalsiinayay labadan bari aan seexan waayay yaa bal soo gal intiina soo geli karta I just cannot believe it war wixiina soo geli karaa soo galaan anigu waxaan rabaa cadaaladaan rabaa aabahay hadduu dhalay xaqa iga yeersiinaya labadii beri oo lasoo dhaafay aabahay adeerka hadduu dhalay xataa waa in la jiido xaqa iga hadalsiinaya soo gal intiina soo geli karta waxaan rabaa inaan idiin sheegay I'm so shocked. I was crying. I have to stop in an oil. I have to stop. Okay, على كل حال سوق وحي سوق لي كروا إن الله الله يا وحرب أخبارنا إن سيو كوساب سنجا بدي يرتأهد waxaan la yaabay xaqa iga hadalsiinay waa seexan way dhowr habeen xaqa iga hadalsiinay marka waxaan rabaa inaan ka hadlo cadaalad u baahanahay cadaalad ana iska bilaabay cadaalad inaan rabo ana iska bilaabay family-gayga haduu yahay qofka wax sameeyay I just cannot believe it. Okay, I have to stop. See, I want to look. waxaan rabaa inaan idiin sheego intiina ku jirta meesha waxaan rabaa inaan ka hadlo really this is serious waxaan rabaa reerkayga inay tusaale u noqdaan Soomaali maanta reerkayga my own family inay Soomaali tusaale u noqdaan aan rabaa cid u doodi karta cid difaaci karta cid u hadli karta male ana ugu horeeya dadka waxa hadda la ii sheegay waxaan la hadlay gaalkacyo waxa la ii sheegay nimanka gabadha dilay nin kamid ah adeerkay aabahay dhalay aniga baa aabiis dhalay eedan ah waxaan rabaa markiinaan ka hadlo cadaaladan raadinayay ana iska bilaabay reerkaygan ka bilaabay gurigaygan ka bilaabaya Soomaaliya waxaan rabaa inaan si fiican ii dhageysataan berita markaan qof kale ka hadlay cadaaladaha lagu qaadaa iraado ha dhihinina shalay maxaa reerkaagi iyo dadkaaga u difaaci aad u cadaalad ugu qaadi weyday ilaahay xaqu iga yeersiinay taar iyo xalay waxaan ku waashay ilaa shalay gabadhan yarta cadaalad inay hesho waa weligay ugama xanuunsan xanuunka aan dareemay malaha it was my own family waxaan sameeyay yaa laakiin midaa idiin sheegaya ilaahay uu itaasti gareynaya
أنا waxaan aaminsanahay ilaahay inuu itaastigareeyo ilaahay inuu igu fiirinayo waxaan ka hadlay cadaaladdan ka hadlay 24 hours dadka aan haysto 24 saac dadka aan leeyahay waa inay wax hagaajiyaan wax toosiyaan anina iska bilaabo waay this came into my family sida hadda la ii sheegay gabadha yartahay Caaisha ah nimanka kufsaday oo dilay oo cunay oo ilkaha kala baxay waxa ku jira wiil adeerkay aabihiis dhalay sida hadda la ii sheegay horudhaca inta dambiga la baaray baarista waxa lagu helay mid kamid ah wiilasha wiil aniga adeerkay aabahay dhalay adeerkay aabahay la dhashay wiilkiisa ku jira uu dhalay marka waxaan rabaa xaqa iga hadalsiinaya xaqa aan waxaan rabaa inaan la hadlo reeraha aan ka dhashay aan rabaa inaan la hadlo today qof u doodi kara mala ninkaas qof u doodi kara mala ninkaas cid sheegan karta ninka malaha ninkaasito waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed iyo reerkaygaba laba waxyaabood aan rabaa inaan ka hadlo maanta kow reerkayga aan rabaa inaan la hadlo publicly ma qarinaay maadaama 24 saac aan banaanka taagnaay oo aan ummadda wax u sheegay oo leeyahay xagga hala yeelo anina iska bilaabo waay yaa waxaan rabaa cidii igu nicil lahayd cidii igu jeclaan lahayd my own family haday dambi galaan waa in cadaalad la mariyo wiilkaas qof u doodi kara male ree hebelo iyo Umar Maxamuud iyo Khalafo iyo jinni iyo wallahi qof u doodi kara male kii u doodan hala xaaqo baas hala mariyo anigoo Safiya aha soo taagan maanta hadeera la ii sheegay taariisa ka dhan waa ooynaay waxa waay waa aamin waay my own family inay soo gashay sheekada laakiin waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo reerka gabadha dhalay iyo ummadda Soomaaliyeed iyo islaamka oo dhan aniga gabadhaasayto xigta saa loo galay ninka dadcunka ah oo wax cunay oo dadka cunay oo hawshan iyo waxaan lugta ku lahaa ima matalo ani waxaan rabaa inaan ka hadlo reerkayga ma difaaci karaan kulli aniga reerka hadda markaan la hadlo waxa lagu yiri wax shaqul ku leh iyo wax sheeganaya iyo wax difaaci doona midna male waxaan ka hadlaa marka reerayooga guud oo tuugada ah yaa oo reer hebel aan nahay reer qalaf aan nahay waa in wiilkeena nin u doodi kara male ana waxaan taagnaa hala jiido hilibkiisa hala karkariyo hala shiilo hala jarjaro wadada hala mari hala lagu jiido hana la tuso ana taagan cid u doodi karta male waxa idin sheegaa nimanka reer hebelowga ku qaraabta iyo qabiilka ku qalaabta iyo oday dhaqameed ku qadaabto reer qalafka sheeganay ma ku dhacdaan inaad difaacdaan wiilkaas my own family waa ma ku dhacdaan inaad difaacdaan waxa idin sheegayaa ninkii isu soo taaga inuu difaaco hal ii soo sheego meel walbaan ka liis gareenaya meel walbaan u dabagalaya meel walbaan u fariisanaya wiilkaas aniga eedad u ah oo ina adeerkay runa uu dhalay yaa oo la ii sheegay hadeer akhbaartiisa inuu ku jiro nimanka gabadh yarta ilkaha kala baxay oo cunay gabadha yaa oo ninka dadcunka ah reerkayga hadduu ka soo dhex baxay ilaaha iga hadalsiinaya 2 bari 3 bari oo la soo dhaafay waxaan rabaa in la karkariyo hilibkiisa oo la jiido oo magaalada lagu jiido Soomaaliya ma maqlaysaan ninkii damca inuu u soo doodana bal waa arki doona oo reer hebel sheeganay kale aniga family-gayga wuxuu doodi doona male cid u doodi doonto male cid sheegan doonto male cid ka hadli doonto male kuwa la dhashaan ka hadli karin caruurta la dhalataan ka hadli karin hooyadiisaan ka hadli karin aabiis waaba dhintay Allah u naxariisto cid ka hadli karta male cadaalada rabnaa dawladda Puntland ana waxaan leeyahay toogto jiida oo daldala oo waxa ka soo laalaadisan sawirkan saaka soo galiyay ilaaha caadilkaan ku dhaartay inaanan ogeyn markaan soo galinaayay waxa aan u soo galiyay ilaahay hortii iga ahayd hadda la ii sheego waxa la igu yiri ninkaas ku jira awal iima sheegin waxa marka rabaa ummadda Soomaaliyeed inuu cadeeyo haduu ku jiro kii adeerkay dhalay wiilkiisa waa in la jiido la daldalo xarig inta laga soo laalaadiyo la shiilo oo la karkariyo wadada lagu jiido naag difaaci karta male nin difaaci kara male bal ninkii u soo istaago reer hebel sheeganaya annaga noo taala cid difaaci karta male qabiil ma maqli kari qabiil u soo istaagi kar ma maqli kari hadda idin sheegaa Soomaaliyeed qabiil u soo istaagi kar malaha ninkaas
ree hebel iyo ree qalaf wax la dhaho wallaahi inaadan u soo istaagi karin oo difaaci karin oo aydan sheegan karin annagaa reerkiisaa ma rabno ha la gubo ha la shiilo ha la karkariyo magac xumadiisa iyo fool xumadiisa iyo fidnadiisa iyo masiibadiisa ha la karkariyo ha la shiilo aniga waxaan taagnahay geedaha laga soo laalaadiyo ummadda islaamka oo dhan ha la tuso ummadda Soomaaliyeed oo dhan ha la tuso cashar ha noqdo wiilka adeerkay dhalay yaa wiilka la yiri wuu ku jiraa cashar ha noqdo ummadda Soomaaliyeed waa halla intaasaan oranayaa saake warkaas ay soo gaaran waan qaracmay waxaan rabaa inaan idin sheego maalmahan oo dhan hadla subax kasna soo galaan dhaay xaqa iga hadal siinay waa seexan waay wiilka la sheegayo oo kamida nimanka afarta mise shanta nin oo afarta nin oo la qabtay oo guriga lahaa gabadh yarta laga helay oo dhiigeedii waxeeda la sheegaa laga helay nimanka ha la karkariyo adeerkay ku dhalaa ku jira la yiri ima sheegto isku dad ma nihin ma dhalin waxba naga ma dhaxeeyaan cid sheegan karta male ma la sheegan karo ree qalaf wax la dhaw ma sheegan karaan ana ree qalaf ka dhashay ma la sheegan karo wallahi na la sheegan karin oo nin u soo istaagi karin oo nin sheegan karin oo nin difaaci karin aabihiin iyo sinjiidiina gubanaysa hadaad sheegataan ana reerkiisa waxaan leeyahay hala daldalo geedaha laga soo laalaadiyo hala karkariyo hilibkiisa hala shiilo jidka lagu jiido abdi biraha lagu jiido dawladda Puntland ay waxaan idinka codsanaa inaa ninkaas karkarisaan ana reerkiisa reerkayga ma u doodi karaan waaba ogahay ma u doodayaan mana sheeganayaan khalafka waxa lagu sheegayna ma sheegan doonaan ana ugu horeeya dadka saaki oo hadlaaya yaa ana ugu horeeya ninka in la karkariyo waay ninka in la shiilo hilibkiisa waay ninka in geel laga soo laalaadiyo waay hadalka intaasaan ku soo koobaa ma dheereenayo saake sheekada saake waxaaba waaye ilaahay anuuba iga bilaabaa cadaalad anuu iga bilaabaa aniga ka hadlaayay labadan bari saddexdan bari gabadh yarta anuu iga bilaabaa ilaahay anna waxaan taagnaa ilaahay oo waa imaqlaysaa kii u hiiliyana baas ha la mariyo nin u soo istaagi karana male nin sheegan karana male nin wax ku darsan karana male kaa ha la karkariyo ha la shiilo ha la karkariyo geed ha laga soo laalaadiyo ha la gubo meydkiisa ha la jarjaro isagii inta kalena cid u doodi karta male kii aniga adeerkay dhalay haddaan leeyahay ha la karkariyo inta kalena cid u doodi karta male xaqa inaa gurigaaga ka bilowdid waay reerkaaga inaa ka bilowdid waa reerkaygaan ka bilaabaya adeerkay wiilku dhalaan ka bilaabaya oo masiibada naloo soo diraya iyo magac xumada iyo fool xumada iyo hooga laakiin beriyaan ka nahay reerkaygana ma sheegan doonaan reer hebeloo kaloo guudna ma sheegan doonaan my own family ma sheegan doonaan waxaan taaganahay ha la karkariyo anaa hadlaay ha la karkariyo hilibkiisa naag u doodi karta male walaashiisu ma doodi karto hebel kale uma doodi karo tii u dooda ha la toogto iyadana ninka u dooda ha la toogto anaa taagan saaki adeerkaa dhalay yaa halkaasaan taagnaa Soomaaliya halkaasaan ku ekeenayaa saaki intaasaan u soo galay wax kale oo iraado ma aqaano reerka gabadha laga dilayna yaa hadda waxa weeye annaga ma aanan idinka dilin gabadhii waa idin sheegay cadaalad ha la mariyo haddaa aniga dhali lahaa qofka dilay ilaahay igama abuuro wax noocaas oo kale ah cadaalad ha la mariyaan taagana yaa gabadha yarta hadeera warka la ii sheegay waan qaracmay waan ooyay teeri saaka 4 in the morning saan u kacay ma seexanin waxa way wiil waxa la ii sheegay adeerkay dhalay wiilkiisa inuu ku jiro aabihii wuu dhintay yaa gaalkacyo ciyaalku waxay ahaayeen waxay ku dhasheen walan weyn ee ciyaalka ku dhasheen yaa dadkii qax ku aaday waa mudug oo gaalkacyo halka ku aaday qax waay ma garateen ciyaalka masiibada ku dhacday waay cuqubo waay aniga reerkayga cuqubo soo gali mayso ninkaas reerkaygu ka bariyihiin aniga hadda markaan reerkii la hadlay qaar waxa liigu yiri shuqul kuma lihin reer qalafka la sheegaa uma doodi kartaan tuuga yahay uma doodi kartaan car u dooda car ninkii sheegta aan arko ninkaas car ninka u dooda ani waxaan dawladda Puntland iyo ciidamada BS-ta iyo sirdoonka aan ku wargelinayaa kii u dooda oo sheegta Umar Maxamuud oo reer qalaf sheegta Baas Mariya ninkii sheegta gabadha yarta aan nimanka dhibaateeyay Baas Mariya aniga reerkay ka bilaaba
reerkay ka bilaaba hadduu mid adeerkay dhalo usoo hiiliyo haddii mid awowgay dhalo usoo hiiliyo haddii midaan isku jifanaha usoo hiiliyo baas mariya anaa garab idinku siinaay baas mariya gabadhaa yarta ah xaqay rabtaa cadaaladay rabtaa waxaan rabaa cashar inay u noqoto islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland reerkaygan ka bilaabay cadaaladda reerkayga my own family ma qiyaasi kartaan my own family wiil adeerkay dhalay baa dhalay yaa ninka gabadha waxa qashi ku jira anigu waxaan taagnaa hala gubo hilibkiisana hala ituso aan taagana ummadda islaamka ay maqleysaan Soomaaliya way maqleysaan reer Puntland way maqleysaan hadaan adeerkay wiilku dhalay aan leeyahay hala gubo hala karkariyo hala jiido oo hala daldalo fiilaha laga qoorta looga xiro cid kale oo asxaan u falay mala ogaada waa iga daacad gabadha yarta cadaalad ay rabtaa gabar dambe oo Soomaaliyeed nafar la saari maayo inta noolahay waa u dagaalamaya this hit me so hard ya ma garanayo waxa gabadhaanay goonidii iiga dhigay xanuun igu haysay aanan garanaynin gabadha yarta ah xanuun aan zaid ah igu qabatay marka arkay waxa lagu sameeyay wax ilaahay malaha wuxuu soo waday inuu yiraahdo family-gaaga waay your own family asamay cadaaladaan rabaa ninka in la karkariyo waay xataa xabad lagu ma dilaayo waa la karkarinahay ilibkiisa meel laga soo waa la soo jiidaa waa la daldala 10 inuu noqdo waay intaasaan ku soo koobaya hadalka waa dheereeyay laakiin waa qaraacansanay qalbiga xanuunaya ma hadli karo maantay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegaa iyo ummadda Puntland ninkaas adeerkay dhalay in la daldalo la karkariyo la shiilo cid sheegan karta male kii u soo doodana baas mariya qalafo mi maqlaysiin annaga reerkeena niri ma rabno ma sheegan kartaan idinkana Puntland waxa xor u tiin ina baas marisaan baas kii u soo hiiliya waa maqleysaan dawladda Puntland madaxweyne dani ninka gobolka maxaa dhahaa gudoomiyaha gobolka mudug inadir maxaa dhahaa duqa caasimada gaalkacyo Yaasiin Cabdisamed waa maqleysaan ummadda islaamka waa maqleysaan reerkeena waa ka bari reerkeena ninka baladu qaadato iimaanka alla ka qaado bahalka aan gabdhahayga yarka ayadoo ahay oo walaalihiis xataa ma cafinayo ani ma cafinayo ninka gabadha saa u galay يا وإن الجبه وإن الدلدله إلها مصيبة وكاني مصيبة أسيكو إكاني غيرك يجلي مش مصيبة أسيكو إكاني قف هبارم واي قف عقوبة كل عدو واي قف إلهي أمر كوريدي واي أنا نسوق لي مايو عتشين كرتنا مالي كي شاكتنا باس مريا كي شاكت وإن مقليسين ريبون تلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا صفية